qisadan maanta aan ka hadlayno waxa ay digniin u tahay dhammaan waalidiinta carruurtooda sida xad dhaafka ah u kontrolo. ku xirnaaw janaalkeena Ashraf CJ kuna soo biir adiga oo subscribe saaraya si aad wax badan ugu faa'iidid. mahadsanid. dhacdadan aan ka hadlayno waxa ay si gaar ah ugu dhacday magaalada Jacksonville ee dalka Mareykanka sideetameydii kadib markii ay isguursadeen lamaanayaal lagu kala magacaabo Steve Phillips iyo Macy. bilowgii wadajirka lamaanahan ayaa waxa ay degnaayeen gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka. Steve inta uusan guursanin gabadhan waxa uu horay u soo furay xaas kale taas oo u dhashay 2 wiil oo lagu kala magacaabo Ben iyo Daniel. labadan wiil waxa ay la noolaayeen aabahooda iyo xaaskan dambe uu guursaday. si degan ayay u noolaayeen qoyskan oo ahaa 4 xubin. haddaba wada noolaashahooda muddo kadib, gaar ahaan marka uu ahaa sanadka 1984 milaadiga, waxaa qoyskan ku soo biiray wiil oo ay Stephen u dhashay xaaskiisa dambe. wiilkan oo loo bixiyey magaciisa Josh. wiilkan yar waqtigiisa carruurnimo, inkastoo waalidkiisa markasta u guuri jireen gobollo cusub, haddana wiilkan markii la geeyo iskuul cusub si fudud ayuu ula qabsan jiray, isla markaasna macallimiintu isku fahmi jireen. waxaana lagu ammaani jiray furfurnaan, akhlaaq wanaagsan iyo degnaan. waxa uuna ahaa wiil yar oo aad loo jeclaa. sidoo kale familka waxa ay ku noolaayeen degnaan iyo farxad. ma aysan jirin mushaakilaad iyo dhibaatooyin dhexdooda yaalay, balse hal dhibaato ayaa guriga ka jiray. dhibaatadaas ayaa waxa ay ahayd aabbaha carruurtan dhalay ee Stephen ayaa waxa uu ahaa dhaqan ahaan nin aad ugu adag carruurtiisa iyo familkiisa. waxa uu ku hayay sharciyo aad u adag oo qalafsan. waxa uu qoyskiisa u soo dejiyey sharciyo aad u adag, yar iyo weyn, oo ay mamnuuc ka tahay in ay dhinac maraan sharcigan. sharcigiisa waxaa ka mid ahaa in dhammaan subaxdii hore loo tooso, habeenkiina hore loo seexdo, in la ilaaliyo waqtiyada waxbarashada iyo sidoo kale waqtiyada casharada guriga dhexdiisa lagu diyaarsho. waxaa dhammaan mamnuuc ka ahaa inay guriga keenaan wax asxaab ah, iyo sidoo kale guriga banaankiis in ay u baxaan ay soo ciyaaraan marka laga reebo waqtiyo gaar ah oo loogu talagalay. wuxuu kaloo ka mamnuucay carruur asaagooda ah inay la socdaan oo ay la saaxiibaan, oo u calaamadeeyey oo yidhi hebel iyo hebel lama socon kartaan, lamana saaxiibi kartaan, iyo sharciyo aad u badan oo ay ka sinnaayeen yar iyo weyn. inkastoo aad ay ugu cabsan jireen, waa ay jeclaayeen aabbahooda, wayna ilaalin jireen sharciyada aabbahooda. haddii ay ka gudbaan waxa uu mid walba la kulmi doonaa ciqaab aad u daran. sidaas darteeda waxa ay ku dadaali jireen waxa uu ka mamnuucay inay ka fogaadaan, amarkiisna ay qaataan. haddaba intaas kadib maxaa dhacay? sanadka markuu ahaa 1999 milaadiga, waqtigii qoyskan ay ku noolaayeen magaalada Jacksonville, waxa ay deris la ahaayeen qoys kale oo lagu magacaabi jiray Clifton iyo xaaskiisa waxaa guriga u joogay oo ay dhaleen 2 gabdhood oo ay mid da'deeda ahayd 13 sano, magaceedana ahaa Jessica. gabadha yarna waxa uu ahaa magaceeda Mary, da'deedana waxa ay ahayd 8 sano. haddaba wiilkan lagu magacaabo Josh waxa ay da'diisa ahayd 14 sano. da' ahaan carruurtan deriskooda ahaa way isku dhowaayeen, gaar ahaan Jessica oo ay da'deeda ahayd 13 sano. waxaa dhacday maadaama labadan qoys ay yihiin dad deris ah inay carruurihii isbartaan oo ay isdhexgalaan. carruurtan badanaa waxa ay ciyaari jireen kubadda baseballsha. maalin ayaa Josh aabbihiisa arkay asaga oo la ciyaaraya kubadda baseballsha gabadhii yareed ee Mary. aabbihii Josh ma jeclaysanin arrintaas. waxa uu u yeeray Josh, waxa uu ku yidhi maanta kadib lama ciyaari kartid gabadhan, sababtoo ah way kaa yar tahay. waxaa dhici karta inaad ku dhufatid, mamnuuc ayayna kaa tahay. wiilkan yar aad ayuu u jeclaa inuu la ciyaaro gabadhan. hase ahaatee gabadhan yar Josh aabbihiis waxa uu geliyey liiska dadka uu la ciyaari karin. inuu amarkiis qaatana waa uu ku khasbanaa, waana ka oggolaaday arrintii. maalin maalmaha ka mid ah waxaa dhacday waqti uu Josh aabbihiis shaqada ku maqnaa, asaga oo cashir ku diyaarsanayay guriga, in albaabkii la soo garaaco. waqtigaasna waxaa guriga joogay Josh oo kaliya. albaabkii ayuu furay,
waxa ay naqatay gabadhii yareed ee Mary waxayna ka dalbatay inuu la ciyaaro kubadda baseball-sha. Josh waxaa qabsatay laba mid dooro. Kubadda in uu gabadha la ciyaaro waa uu iska rabaa, iyadana waxa ay ugu celcelinaysaa kaalay aan ciyaarno. Hase ahaatee gabadhan waxa ay ku jirtaa dadkii uu aabihiis ka mamnuucay inuu la ciyaaro. Haddii uu aabihiis ku arko asaga oo gabadhan la ciyaarayo, waxa uu la kulmi doonaa ciqaab aad u adag. Xoogaa markii uu ka aamusnaaday, waxa uu yidhi okay, waan kula ciyaarayaa, laakiin waqti yar oo aad u kooban ayaan kula ciyaarayaa. Kadib waxa ay tageen park ay leeyihiin Josh oo ka dambaysay gurigooda. Meeshii ayay in muddo ah ku ciyaarayeen. Hase ahaatee muddo markii ay wada ciyaareen, waxaa dhacday arrin aad u halis badan. Waxaa dhacday Josh hab aan ku talagal ahayn in gabadhii kubaddii indhaha uu ugu dhufto, isla markaasna gabadhii isha ay ka dhiigto. Josh ayaa arkay gabadhii oo si xad dhaaf ah u ooyeysa, dhiig badanna uu ka socdo isheeda, wuuna aamusi kari waayey. Waxa uuna ka cabsi qabay in la maqlo oo aabihiisna yimaado. Wuxuu isku dayay inuu gabadha sasabo oo uu aamusiyo, balse way ka sii dartay. Waxa uu aad ugu cabsi qabay aabihiisa sababtoo ah waxa uu jebiyey laba qaanuun ka mid ah sharciyada aabihiisa uu dhigay. Midda koowaad, waxa uu ciyaarta u baxay waqti ka mid ah waqtiyadii laga mamnuucay inuu ciyaaro. Tan labaad oo ah waxa uu la ciyaaray shakhsi laga mamnuucay in uu la ciyaaro. Markii ay aamusi weysay gabadhii, waxa uu si xoog ah ugu dhuftay geedkii uu ku ciyaaray baseball-sha. Gabadhii ayaa ka sii dartay ooyinteeda. Waxa uu u cararay dhankii madbaxa. Waxa uuna soo qaatay mindi, si xoog ayuuna u gilgiliyey ilaa ay ka aamusto. Sidaas ayayna ku dhimatay. Markii ay gabadhii dhimatay, ayuu qaaday meydkeeda. Waxa uuna ku hoos qariyey sariirtiisa uu seexanayay. Sababta uu arrintaasi foosha xun u sameeyey ma garanaysaan? Waxa ay ahayd cabsi uu ka qabay aabihiisa. Gabadhii yareed ee Mary ehelkeeda ma aysan ogeyn meel ay ku maqan tahay. Waxa ay u haysteen in ay la ciyaaraysay walaasheeda Jessica. Markii Jessica guriga ku soo laabatay kaligeeda, muddo yar kadibna ay imaan weysay Mary, ehelkeeda way u cabsadeen. Waxa ay isdheheen gabadhiina way luntay ama waa la afduubtay. Isla markaasna waxaa lagu wargeliyey booliiska. Marna ma aysan filaynin in gabadhooda ay geeriyootay. Waxaa la guda galay raadinta gabadhaasi yar, waxaana loo qoondeeyey qofkii hela gabadhaasi in la siin doono abaalmarin gaaraysa $50,000 ah. Hase ahaatee muddo 2 maalin ah markii la waayey gabadhaasi, qoyskii waxa ay ku dareen lacagtii $50,000 ah oo waxa ay ka dhigeen $100,000 ah. Tirada badneed ee raadinayay waxaa ka mid ahaa wiilkii yaraa ee Josh ee dilay gabadhii. Muddo isbuuc ah markii gabadhii lagu daalay raadinteeda oo xataa la waayey goob ama dad loogu shakiyey, waxaa dhacday subaxaha ka mid ah Josh oo hurdayay inay u soo gashay hooyadiis si ay hurdada ugu kiciso. Hase ahaatee waxa ay dareentay ur aad u daran oo aan la xamili karin. Waxayna sugtay inta uu ka aadayo iskuulka si ay u nadiifiso qolka. Waxa ay raadisay meesha uu ka soo baxayo urkan xad-dhaafka ah. Sariirtiisa oo ahayd nooca biyaha ayaa waxa ay isdhahday sariirta ayaa biyaha daadinaysa. Urtana meesha ayay ka imaanaysaa. Markaas ayay qaaday alwaaxyadii ku wareegsanaa sariirta. Kadib waxa ay fiirisay xagga hoose ee sariirta. Waxay ku aragtay lug bini aadam oo ka soo taagan. Aad ayay u cabsatay, isla markiina waxa ay la xiriirtay booliiska. Isla maalintaasna Josh waxaa loogu tagay iskuulka. Waa la soo qabtay waxaana la geeyey qolka dembi baarista. Waxaa orod ku yimid aabihiisa oo ka codsaday in uu dembiga qirto haddii uu dilay gabadhaasi yar. Sidii ayaa dhacday oo wiilkii yaraa waxa uu qirtay inuu dilay gabadhaasi. Qoyskii gabadha markii ay maqleen inuu dilay Josh gabadhooda, waxa ay ku noqotay lama filaan. Maxaa yeelay Josh waxa ay ku yaqaaneen inuu ahaa wiil akhlaaq leh oo degan. Gabadhoodana aad ay u jecleed inay la soo ciyaarto. Waxayna codsadeen in wiilka dilay gabadhooda ay jeclaayeen
lagu xukumo xukunkan ugu adag waxaana lagu xukumay xabsi daa'in aan racfaan lahayn. Inkastoo waqtigaas Josh da'diisa ay ahayd 14 sano oo weli waxa uu ku jiray da'dii carruurnimada, haddana arrintaas ma ka hor istaagin in lagu xukumo xabsi daa'in. 2 sano kadib Josh markii uu xabsiga ku jiray, waxaa geeriyooday aabihiisa oo shil gaari ku dhintay. Josh waxaa la weydiiyey sidee kuugu suurta gashay wadna adeeg intaas la eg inaad ku huruddo sariirtaada hoosteeda asaga oo meyd ku jiro oo weliba gacantaada aad ku dishay, miyaadan cabsanaynin oo welwalaynin? Waxa uu yidhi, waqtigii aan yaraa markii qaladaad iga dhacaan waxa aan nafteyda ku qancin jiray wax aan dhicin oo kale inaan ka soo qaado. Sanadka markuu ahaa 2012, maxkamadda Mareykanka waxa ay soo saartay qaraaro cusub oo dib loogu furayo kiisaskii carruurtii la xukumay. Sidaas darteed Josh waxa u suurta gashay in dib loo furo kiiskiisa. Waxa uu yidhi Josh, ma huwa in lay cafin doono, balse waxaan u baahanahay fursad. Laakiin sidiisii la mid ah waxaa lagu xukumay xabsi daa'in ah. Haddana 2023 ayaa kiiskiisa dib loo furi doonaa.